hindisa sharciyeedka howlgabnimada iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida oo 22 bishan May dib u eegis ay ku sameeyeen guddiga difaaca baarlamaanka ayaa waxaa jira doodo badan ay ka keeneen dad qobar oo ah dhanka ciidamada iyadoo hindisahani uu socday waqti badan haddaba maxay tahay faa'iido uu leeyahay sharcigan cusub ee guddiga difaaca baarlamaanku dib u eegista uu ku sameeyay sharciga dib u eegista howlgalnimada sharcigaas oo ahaa sharci lambar 6 1969 December ayaa sharcigaas la ansixiyay marka sharciga ayaan dib u eegis si mataqaana ugu sameeyno oo aan mataqaana oo ula jaan qaado wadankii maadaama uu federaal noqday iyo xaalad hadda jirta sharcigaas dib u fiirinayna marka arinta hadda ay weydiiso da'da iyo maaragtay waa qayb kamid ah sharcigu waa sharci aad u ballaaran oo ka turjumaya baahida marka jirta si la socodka waxa weey dalkan waxaan ku mashquulsanahay inaan dib u dhisno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taas marka waxay muhiimad ay leedahay in dadkii dalka u adeegay oo howlgabka noqday inay helaan xuquuqdii dalkan ay u adeegeen marka sharciga horta muhiimadiisa intaas weeyna waxa rabaa hordhacaas waxaan ku siinaa hawaaye sharciga muhiimadiisa waxay ahayd in dalka dadka u adeegay xaqooda la siiyo iyo qofkii ku dhintay isagoo dalka u difaacaya ama askarnimo wadanka isagoo u adeegaya xuquuqdoodii iyo in sanduuq la dhiso sanduuqa howlgabnimada marka sharcigan saas weey waa sharci ballaaran weey oo mataqaana baahida kulay askartii kuwii howlgabka ah kii dhaawac noqday kii dhintay ka warqabi doon eheladoodii marka saas ayuu muhiim ugu leeyahay hadda qaybta galaalaysa waa qayb yar oo ku saabsan da'da ay askartu ay ku howlgab noqon doonto dooda ugu badan waxay ka taagan tahay dhanka da'da iyadoo sharciga howlgabnimada da'da dablaha howlgabaya ay tahay 40 sano halka shaqada ciidanka looga fariisto 64 sano sidoo sharcigan uu qorayo dadka arrimaha ciidamada la socda waxay qabaan in shaqada askariga loo baahan yahay intamaanki sargaalku maskaxda ayuu howlgab ka noqdaa kama noqdo lixaadka xataa kama noqdo maskaxdu ka noqdaa intuu maskaxda ka hogaaminayo sargaalku waa shaqaynaya waxa kale oo jira farsamooyin gaar ah oo ayadana aan laga tagi karin sida aan kuwan ku sheegay madaafiicda goobta raadirada gantaalaha diyaaradaha kuwa kale oo hogaaminta ciidamada kala duwan waxa kale oo jira debibaaraha ninka ah oo juudi saariyada ninka ah waa asagana wardoonka ninka ah asagana waxa jira qaabab gooniya loo dhaqma in qaababkii u kala saaraan sharciyaha ciidanka logistikada kuwa ah oo khibrada u leh logistikada ciidamada qalabka sida oo kala duwan oo ah kuwa aan loobi karin sababtoo ah dalabka ciidankeenu u baahan yahay ciidanka nima guuta waxa dalbi karin hadii la yiraahdo maanta ciidamadoo dhan waxa u dalab la yiraahdo wuxuu sheegaya hadii la yiraahdo hub doon wuxuu doonayaa nin yar oo waxba ka ogeyn hadii la hubka ciidamada dalkaaga u baahan yahay doon soo diyaari muxuu sheegayaa dhalinyaro badan ayaa ciidamada xooga ku biiray kuwaas oo iyagu doonaya in doorka dhalinyarada uu noqdo mid ka dhex muuqda hoggaanada kala duwan ee ciidanka xooga iyadoo saraakiisha xilligan ciidamada hogaamisa markuu hirgalo sharcigan howlgabnimada iyo hibooyinka ciidamada badidooda ay noqonayaan howlgab balse sharcigan markaad akhriso waxa kaaga muuqanayo in dhalinyarada haatan soo kobcaysa ee ka tirsan ciidamada ay u helayaan fursad ay waajibaadkooda qaran ku gutaan fursad aad u fiican again macnaha markaan ku leeyahay waxa weeye adduunku waa isbedelaa waqtigu moogtahay waxa waaye inaan horta jaanisin dhalinyaradeenna waa wax muhiim ah hadda askar badan oo layli ah ayaa maaragtay wadanka horta saraakiisha saddex qayb oo kala baxaan general kitab ana saraakiisha sare saraakiisha juniorka saraakiisha dhexe iyo wixii ka hooseeyo dableyda ilaa iyo staff sergeant waxa la dhaho kuwa maaragtay hoose marka talada dalka ama ciidamada hogaamintooda waxa badanaa loogu talagalay inay ilaa mataqaana xidigle ilaa iyo mataqaana dama ilaa major ilaa colonel macna dadka waxa la middle officers junior macna dadkaas loogu talagalay inay maamulaan hadda marka dhalinyaro badanaa inta kuleedaha loo diray dibadaha oo istiraatiijiyada soo bartaan isagoo 30 jir ama 40 jir soo noqonaya wana askariga la siyaa xidiglahaas ama laba xidiglahaas fursad uu mataqaana ururadii ama guutooyinkii ku maamulaan oo ku bartaan mataqaana hoggaanka ku bartaan marka fursad fiican ay sii doontaa Janiska maalin la weyn madaxweynaha sala socotid hoggaamada jiray xoogga dalka Soomaaliyeed 22 hoggaan ay ahaayeen
wuxuu ka soo reebay 13 sagaal hoggaan ay ugu tiray qorshahaasna waa qorsho isku wada xirno ah in ciidankii noqday ciidan liina waxa la ciidan dhisan oo number sax leh oo dalka difaaci kara oo aan naqaano waajibaadkoodana dawladda Soomaaliya federaalka ay qaabsanayso dhalinyarada in la siiyo fursad ay ku muujiyaan hogaankooda waxaa muuqanaysa haddii sida saxda ah uu hana qaado hindisaha howlgabnimada waxaa meesha ka baxaysa saraakiil ciidan oo noloshooda ku qaatay ciidannimo waxayna walaac ka muujinayaan saraakiishaasi saameynta uu ku yeelan karo sharcigani cusub maxamed ciise koona goobjoog muqdisho